إسرائيل معبودين بريد حين تودقوا إرتكما أفايستين وبقول يهودي تكبابيرين أيو باركاو في راي برقالغو مقاري إسرائيل معبودين بريد حين تودقوا إرتكما أفايستين وبقول يهودي تكبابيرين أيو باركاو في راي برقالغو مقاري بدكما عيارين بربارة داملاين هدان مروق بوحيو استعمار كبال جيرينو بيدو قراعين بدكما عيارين بربارة داملاين هدان مروق بوحيو استعمار كبال جيرينو بيدو قراعين وبهالقو ما يستوه كلابه سنانتيو بيلا ذا تشعلو مركوبات كاكولاهلو كابوغا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo joogtiin gaar ahaan bulshooyinka Soomaalida DDS kulli maanta insha Allah taala waxaan live kan soo galay waxaad ogtihiin xaaladda taagan ee galbeedka city ka taagan iyo sida uu murugsan tahay dadkuna ay jahwareerku ugu jiro loona dareensiinayo in xaaladani ay tahay xaalad aan anagu aan gardaranahay in aan maaragtay maxaan dhadaay waxyaabo badan oo taariikhda ku saabsan aan ifino ayaan maanta uga goleenahay dadka qaarkood baa waxay u arkaan in qoraal la sameeyo mise Facebook wax lagu soo qoro ama leeso maaragtay maxaan dhadaay la sameeyo live la soo galo inay hadal tahay hadal wax tar lahayn laakiin xaqiiqda waxay tahay hadalka horta wax tar malay maaragtay nin mufakkiro weyn oo Masaariya ayaa toddobaataniyeedii wuxuu qoray maqaal la yiraahdo hadalku wax mutara waa toddobaataniyeedii sida la sheego 2011 markii towradda Masar ay qortay ayuu hadalkii ka jawaabay maqaalkii uu leeyahay hadalkii baa wax taray taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa afba bilaawo baxsha bulshadu intaynan qorshe dhigan ayna dhaqaaqin ayna dagaal gelin aynan hadafkeeda furin horta waxa u baahan tahay wax la yiraahdo wacyi gelin bay u baahan tahay in bulshada la wacyi geliyo in garaadkeeda la dhiso in qadiyadeeda lagu abaabulo dad dareen la geliyay ba maartay maxaa dhadaay meel dhaqaaqi kara saadarteed hadalku marka uu yahay xikmad leeyahay waa xikmadda wax bini aadan ka dhaqaasta waxaan ka hadlaynaa marka walaalayaal hadaba hadalku hadduu qiimaha leeyahay ahmiyadda taariikhda waxa la yiraahdaa ummaddu waxa ay ku nooshahay kuwan iminka joogay haddii halkii ay ka yimaadeen ayna garanaynin meesha ay u socdaan ma yaqaanin bal haddaanad garanayn meesha aad ka timiday sidii aad u noolayd dhibaato iyo duruufihii aad soo martay waxay tusaale kaaga yihiin muraayad ku ifinaysa halka aad u socotid marka ummadda aan taariikh lahayn waxa la yiraahdaa waa ummad aan mustaqbal lahayn ayaa la yiraahdaa marka saabay taariikhdu ahmiyadu leedahay arrintan marka xaaladda u dhaxaysa Somali state dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka city iyo canfar dagaalkan bariyahan dambe soo xoogaystay waxyaabaha uu ku saleeyahay inta aanan ka hadlin horteed dagaalka nota geeska Afrika la yiraahdo indigenous people dadka asal ahaan deegaanka u leeyahay waa dadka la yiraahdo Kushetiga waa bulshada Kushetiga la yiraahdo ay Soomaalidu kamid tahay ee canfartu kamid tahay ee Oromadu kamid tahay ee Sidaamuhu kamid yahay ee kuwa kale kamid yihiin asalan hadaad khariidada Google gareysaan odeegtaan oo ku Google gareysaan Kushetik hadaad ku qortiin East Africa oo laga arkaa halka Semitiga iyo maartay kuwa kale laga helo qaaradaha kale laga helo meesha quraata degannahay waa halkan that means geeska Africa iyo bariga Africa ay waa meesha asal ahaan dadka u abtirsada kuushku ay deganaayeen
taariikhda markaad dib u milicsatid sida doontaadaad u baadhid waxaad ogaanaysaa wixii qarnigii 14aad mise qarnigii 13aad ka horreeyay magacdan hadda reer kuush ay sitaan oo dhan inuusan meel ay ku qoran tahay jirin taasi waxay ku tusaysaa inay dadkan isku magac ahaayeen meel quraatay wada deganaayeen dad quraatay wada ahaayeen qoomiyadahan kale maanta noo sheegta waddanka ee amxaarada leh ee tigreega leh iyagu haddaad khariidada dib u eegtiin waa dad Yemen nagaga yimiday oo intanay degan yihiin laftirkeeda annaga naga qaatay marka southern ku sheegtay baa la dhahaa kuwa dadkeena southern ku sheegtay halkaan deganaynin intoon badda ka imanay ma soo faafine sidaamiya akabaabigeega iyo dhulkan ay amxaartu degantay baan asal ahaan deganayn maarta maxaa ilaa iyo xeebaha intan oo dhan ayaan deganayn taariikhdaabaan markaa wada leenahay markaa 10 qarni ka hor maarta maxaa dhadaayay isku dad baa la ahaa haddaan oromanahay iyo haddii aan nahay Soomaali iyo haddii la yahay Anfar laakiin markaasay bini aadanku bataan way faafaan ninba degal buu ku faafaa ninba af buu yeeshaa ninba dhaqan gaar u yeeshaa ninba deegaan gaar u yeeshaa faafitaankii baa markaa kala yeelashaha dhulka keenay haddaad u fiirsatid arrinta odhanaysa sheekada odhanaysa haddaad ogtihiin inku waxaan uga gol leeyahay ay Anfartu in badan ku soo celceliso ay tiraahdo dhulkani waa dhul Anfareed buu ahaa Soomaaliduna way nagu soo duushay oo dhulka iyaga qarniga 20aad dhammaadkiisii bay soo degtay ay leedahay waa waxba kama jiraan taariikhda marka la eego waxaa cadaynaysa taariikhda burinaysa ayaan dareen laakiin anagu ma nihin dad wax qora dad wax baara dad wax diraaseeya dad taariikhdeeda qoraal ku dhigta taariikhdeena suugaan baan ku urursan jiray maahmaah iyo gabay baan ku urursan jiray iyo sheekooyin baan ku urursan jiray laakiin ma nihin dad wax qorta maalin markaa qadiyadan anoo baaraya ayaan waan google gareeyay waxaan eegay bal qadiyadan Anfarta iyo Soomaalida galbeedka city laga qoray maxaa maarta maxaa dhadaay wax laga qoray English baan ku google gareeyay buugaag fara badan baan arkay Carabi baan ku google gareeyay Amharic baan ku google gareeyay afaf kale ku google gareeyay wax Soomaaliya oo qadiyada wax ka qoray baan waayay arrinta la yaab kale halka ay iyagu iska dhaafeen jaamacadda Samara ardayda markay degree mise master mise PhD waxa doonaan qaadanayaan waxa lagu dhiirigeliyaa oo lacag lagu siiyaa cidda qadiyada wax ka qorta iyagu wuxuu way qorteen anagu laakiin ma qoranayno huduu marka hadii la yiraahdo hal kala baxo oo hal kala garamo oo miiska la isla fadhiisto ninu wuxuu qoran yahay inuu wuxuu qoran waa xiriir dhul baa la kala noqonaya marka anu inta baadhaya waxaan anagu leenahay markaan waay wixii ay dadku naga qoreen ayaa waxa qasab noqotay inaan ka dhex gurano wixii aan waalay ana ka dhex gurano marka qasab inaan arinta galay waa qasab weeyaan oo dad taariikhda yaqaana mise wax qora mise wax akhriya loo xil saaro 2 sano 3 sano aan baadhno waa qasab weeyaan si aan maartay maxaa dhadaay halgankeenu halgan runa u noqdo dab ahaantii waxaan arkay book lagu diyaariyay PhD oo ku diyaariyay nin xabashiya oo Muaaz la yiraahdo Muaaz Gilay Alamu baa la yiraahdaa Pretoria University ayuu ka diyaariyay arrintan buuga magaciisa waxa la yiraahdaa Afar Violence in Ethiopia and the Imperative Transformation ayaa buuga la yiraahdaa waa thesis PhD lagu helay lagu qaatay 2018 baa la diyaariyay buugan ninka qorayay qaabka uu qorayo haddaad aad u akhridid wuxuu u qorayaa qaab uu ku difaacayo Anfarta laftirkeeda laakiin haddaad meelaha qaar ku akhridid isaga laftirkiisa contradiction isku sameeyo wuxuu cadaynayaa inaan maartay maxaa dhadaay dhulka oo dad quraatay wada ahayn marka sida buuga ku tibaaxan Soomaalida iyo Anfartu qarnigii 16aad dad quraatay oo dawlad quraatay leh oo meel quraatay wada degan bay ahaayeen dawladii Axmed Gurey markii Axmed Gurey uu dhintay Allahu yarhamu boqortooyadiisii ay ka soo guurtay wadanadan Gojaam ay ka soo guurtay ay harar imatay amirkii ka dambeeyay Amir Nuur la dilay qoyskii Axmed Gurey harar markay ku badbaadi waayeen fafkii Oromada ayaa harar jeedo oo deyrkan adarkaysiin maartay maxaa dhadaay ay isku xidheen hararidu marka qoyskii waxa la sheegaa inay u soo guureen fertile land of maartay maxaa dhadaay dhulka dihin ee maartay webiga Hawaash ee Anfarta meesha la yiraahdo Hawsa inuu soo guureen marka Soomaalidii iyo Anfartii oo waqtiga dad quraatay ahaa isla markaana xulufo ahaa oo isbaahaysi ahaa oo gacan quraataya ayaa boqortooyada dhulkooga imatay soo guurtay wuxuu tilmaamayaa
in ay weeraro ku wada qaadi jireen iyagoo mid ah ay ku qaadi jireen weeraradiina markii dambe ay ku daciifiyeen ay ku dumiyeen marka boqortooyadan mise saldanadan cawsa ee marka dambe canfartu sheegato waa saldanad qoyskii axmed gurey ka soo jeeda weeyaan buug marka wuxuu tibaaxayaa halka in la wada joogo waa qarnigii 16aad waxa la joogo waa 1000 iyo waxaan ka hadlaynay 1500 waqti cagcagaynaya dhamaadkiisii waxa laga hadlayaa waa 400 500 sano ka hor waxa laga hadlaynay meel quraat wada taagnaayeen maxaa sababay marka haddaad u fiirsatid xitaa waxaad arkaysaa iska dhaaf in dhul la kale lahaade qoysaska laftirkiisa saaba la isku dhex gashan yahay gaar ahaan beesha Soomaalida ee galbeedka city degtay reero badan oo kamid ah oo imika canfar abaa jira oo deegaano badan degan oo dadku markay abaar ku dhacdo waa la iska degi jiray waxa kale oo dhici jirtay reer markuu dhagar galo tusaalahan oo 5 qof 6 qof 10 qof uu dilo oo qofkii kastaba laga rabo 100 halaad iyo barqabkeedii laga rabo 100 halaad magdhaw laga rabo de 1 halaad markuu bixin kari waayo reerku soo dhan yahay uu guuray canfar buu iska degi jiray marka qabiil kasti waxaad ka dhaxarkaysaa canfarta dhexdeeda boqolkiiba waxaan ku qiyaasi karaa 30 ilaa 40 inay asal ahaan dadkaniba ay yihiin dad Soomaaliya laakiin assimilation sida u jiraan dad badan oo Soomaaliya oromoobay ayaa waxa u jira dad badan oo maartay maxadada Soomaaliya canfaroobay ba u jira marka dadku sidan bay isku dhex galaan iska dhaaf xitaa iyaga laftirkooga qaraya waxaan shir ku galay muxuu ahaa hawa shiraan ku galay mas'uuliyiintoodu waxay noo sheegeen aabayaasheen waxay noo sheegeen bay leeyihiin in canfar waliba iyagu reerka sheegeen Soomaalida kale ma yaqaanin canfar iyo ciise leeyihiin inuu odayga ciise canfar la oran jiray uu 3 wiil dhalay 3daa wiil uu dhalay uu maartay maxaa dhadaay dhaxalkii ay waabahoodu uga tagay ay isku dirireen laba ay taxaaluf samaysay midna la qadiyay ka la qadiyo ciise aha sidaa darteed maartay maxaa dhadaay dagaalkii ay ku qaadeen ay hantoodu ka qadiyay isaguna maalintii laga bilaabay ilaa dagaalkii ayuu nagu hayaa bay dhahay markaas aan ku jawaabo waxaan ku yiri war haday sidaa tahay dadku waa dhukay aabaheen nooga tagay una maxaad noogu haysatay dhaxalkii aabaheen adiga iniga aaba haystee nasiiyade dhaxalkii iniga haystee way nagu qosqosleen marka taariikhdu horta sidaa bay tahay waqtiga awoodii ay yeesheen iyagoo markii dambana garabsanaya boqortooyadii Abyssinian-ka muslimiinta jibisay intay taxaaluf la sameysteen ayayna soo wadeen say noo soo wadeen bixeebta nagu soo shubay halkeen laga soo qaaday waa cawsa waxna laga soo qaaday wala fiirsay waa hawaash waxna laga soo qaaday waxa sidiina loo waday maxaa yeelay farda haday tahay hubaday tahay boqortooyadii Abyssinian-ta siinaysa iyaga annagu laakiin cidna gargaariso naga qabanaysa ma jiro qol xad iyo waxaan ku dagaalameynay iyo fallaar baan ku dagaalameynay sidiina loo soo waday iyo marka xeebahana la keenay gumaysigii kadib wixii hub laga helay ayaan dib isaga soo celinay sidii aan soo wadnay ee kulba meel iyo Talyaanigii iyo xornimadii Soomaaliya iyo wixii oo marka adu wixii qoriyo laga helay iyo 77 iska dhicintii marka waxay ka sheekeeyaan soo rogaal celintan aan dhulkeena dib u qabsanaynay inta badan ka sheekeeyaan kama sheekeeyaan dhulka iyo sidii markii hore nologa kaxeeyay kama sheekeeyaan taa kale iska dhaafta shir baa lagu galay hawaash waa la wada garanaya xaqiiq weeyaan hadda deegaanka u fiirsatid ceelasha asalka ah ee muhiimka iska badaa xitaa asalka ah ee dad umadii hore laga soo qaaday haddaad wareysatid ay canfarto imika ay biyaha ka cabaan iyo qoday haddaad tiraahdi waxay ku sheegeen inay Soomaali qodeen hadda ceelasha laftirkeeda inay Soomaali qodeen oo akishi uu kamid yahay dadka maartay maartay ceelasha lahay ay kamid ahaayeen degalkan marka maadaama anagu dad cirka ka yimid deemani halka maanu dhalanay laakiin loolankii isku dhacyada kala duwan ee nagu dhacay ayaa waxa sababay in maartay maxadada nala riixo anagu marka fursadii halana aan dibde maartay maxadada dhukeeni aan ugu soo noqono marka kow waxa lagu hayaa dagaal ba lagu hayaa taariikheed waxa laga dhaadhicinaya oo la akhrinayaa kaliyaatay waqtiga adigu aad soo noqotay lama akhrinayo waqtiga adigu aad maartay maxadada lagu riixay dib lagu celiyay lama akhrinayo dagaalka koowaad ee canfarta nagu qaadayso dagaal taariikheed dagaalka taariikheedna qaabka loo galayo dib baan ka gali doonaa markaan mowduucyo kale aan dib uga soo hadlayno yaan dib uga hadli doonaa dagaalka kale galayeen waa dagaal media saxaafadda annagu haddaan wax qorayno oohinun baa soo qora qaylaan soo qorna waa nala dilay oohinu laakiin inaan afafka dunidu ay wax ku fahmaan af ingiriis af carabi afka Itoobiya wax ku fahmaan af Amharic af Soomaaliga laftirkeeda inaan qadiyadeena dadka ka iibina wali halkeedii ma gaarsiisnay iyagu waxay leeyihiin boqolaal activist oo shaqo kale aanan haynin oo lagu siiyo mushahar kaliyaatay inay Facebook iyo YouTube ay dul fadhiyaan oo qadiyada ku difaacaan iska dhaaf dhulka ka iyagu qorayaan qof Soomaali hadduu wax soo qoro isla markaaba ku canfar comment gareynaya waa maxay waa shaqadiisi afar miiska wuxuu u fadhiyaa wixii canfar laga yiraahdo inuu difaaco
canfarna maaragtay maxaa aragtideeda iyo weerarkayga inuu had iyo jeer uu ka dhigo weerar qadiyadeed oo iyagu dadkii xaqa lahaa ay yihiin marka activistiyo fara badan bay leeyihiin iyagu annagu midmid yaro isagu marka uu dantiisa uu soo dhameeyo un meelaha ka qaylqayliyaan leenahay laakiin waa in la helaa dad maaragtay maxaa dhacday waxaan ay qadiyad ka tahay waa taas qaabka lagula dagaalamay imika berigii hore waxaan hayn dadka dee xoolaha iyo horta qadiyadda dhulka la yidhaahdo iyo lahaanshaha inta badan waxaa abuura marka aad dowlad nidaam dowladeed marka la galo laakiin dadku markay nolosha remiyiga isaga nool yihiin dhulka ahmiyadda ay ka leeyihin waxa weeyaan qofku meeluu biyo ka helo xoolihiisu iyo meeluu daaq ka helo meesha uu maanta degan yahay hadduu biyo iyo ka waayo iyo daaq hadduu ka waayo uu ka guuriyo meel kale u guuri sidaa un baa la lahaa iyaguna way guuri jireen way soo guuri jireen waan ku guuri jirray waan ka guuri jirray sidaa un bay laakiin dowladahan casriga markay yimaadeen ayaa qadiyaddii waxaa laga dhigay qadiyad siyaasad baa soo gashay siyaasaddii markaa riixriixaas heshiisyadaad arkaysiin dowladdan abisinia oo markii dambena etoobiya noqotay had iyo jeer waxay la jirtay canfartay had iyo jeer la jirtay waa qadiyad sax oo la ogyahay oo ay ku taageersanayd heshiisyada ay sheegtaan ee halkaabaa loo joogsaday kontomiyadii halkaabaa lixdameeyadii loo joogsaday halkaabaa afartamiyadii loo joogsaday ay leeyihiin wuxuu la mid yahay un heshiiskii cabdi iile maaragtay marka dhaweyd qasabka lagaga sheexay ee dadkeenna wax jooga ogaas uuna joogin oday dhaqameedkii saxdee dadka matalay una joogin shacab una joogin oo xooga ay dowladdu iyadoo qori cabdiile ku hayso kale haddii aad wareejin weydo dhulka ya kursigaagaad waayi uu cabdiile kursigiisa ku badbaadsanayay sidaasi lamid un bay ahayd xoog wax qasab ku saxeexa la leeyahay un bay ahayd laakiin wax ummad lagu heshiisinay maahayn hal mar baan arkay hal meel baan arkay wax daacad laga aha ninka zawdu gabra hiwat la yidhaahdo ee qore buugga la yidhaahdo hiwat wut awran kacaakufka nolosha buugga la dhahdo taariikhdiisii nololeed ee maamul iyo xayla salaasi iyo dhulkii la soo shaqeeyo dhum ka sheekeynaya marka jarar wareera ayaa mar maaragtay duq looga dhigay inuu madax ka ahaa wuxuu isku dayay maadaama canfartu jarar wareera ay hoos iman jireen annaguna aan maaragtay maxaa dhahday maamul ahaan xayla salaasana hoos geeyey awraajihii la odhan jiray isana gurgura awraaja nala hoos geeyey isku dhacyadii markaa xoolo dhaqatadu ay isku dhacayeen si loo xaliyo maartay 1940yadii ayuu shir qabtay halka uu dadka ku dhexdhexaadinayo iyo sheegaya ninkaas wuxuu tilmaamay inuu daacad arrintan ka ahaa oo toddobaad u fadhiyay gawaani loo fariistay heshiiska waxa kamid ah horta dadku inta dadku isdhex galayaan ka hor labada dhinac midna maartay maxaa dhacay gawaani uu xadku ahaado gawaani nina cideed baxa uu ka daaqo midna uu ka daaqo cideed dhac waa inta leeshin laakiin meesha gawaani la yiraahdo inay noqoto wareera labadoodu ay wada leeyihiin saabu dhigan uu noqon kara buuggii oo qoraal aan hayna markii hore in yar baan ka haynay laakiin iminku adsameynto ka soo iibinay baan helay waan haynaa buuggii caadi aan haynaa ninkaas qoray ninkii heshiiska maartay maxaa dhacay dadka dhexdhigay gawaani waxay noqon doontaa sidoo heshiis ku dhigayo caasimad ay labada reer wada leeyihiin oo wada degan oo maamulkooga ah sidii canfarna raali bay ka noqotay waan ku soo noqon doonaa korontada ayaa nagu damtay naga raali ahaada